السلام عليكم أصحابتا qaaliga soo dhawaada waa walaashiina Shaadiye qurux haddii aad noogu cusub tahay subscribe gambaleelkana furo like share insha Allah maanta waxaan sameysanay oodkac mise luqmad ninba siduu u yaqaano sidaan ayuu noogu soo baxay maasha Allah waad u jeedaan luqmadeeni insha Allah waxaa ka muuqdana waa hadde sidii u karsantaad waad u jeedaan waxaa oodkacan laga sheekay karin biidmilaahil kariim la socod wanaagsan sidaan ayaan u sameynay insha Allah halkan waxa igu jiro waa hilibkii oodkacaha qiyaastii waa 4 kiilo waa qiyaas ma bahbo waa 4 kiilo hilib ah waa la soo jarjaray xogaa uu qalali waay maanta roob ayaa jiray insha Allah digsiga ayaan hadda ku soo shubtay dibka ayaan saaraytay waad u jeedaan xogaa inuu hooda soo karo way soo maahan hilibkii biyo ayuu dhalaa biyahaas intuu ka gursanayn waa inaan sugnaa sidaas ayaa waxaa la rabaa inaad u gadgadisid sidaad u jeedaan sidaas ayaa si fiican loo gadgadinaa sababtoo hadda waxa waa bilaaw dibkiyaan soo saaray insha Allah hadda waxaan rabnaa oodkaceena mise luqmadeena inuu si fiican noogu soo baxdo biidnillaahil kariim waan isla arki doonaa sidaas ayaan tartiib u jeedaan hala hadda wuxuu soo noqday Soomaa kulli inuu isku ekaadaan rabnaa hadda inaa labida ka deys lama rabo hadii kale wuu ka halaabaa sababtoo dhinacna cadaan dhinacna madow ayuu ka noqonaa maanta dhan inaa si fiican u qastid ayaa la rabaa mise u walaaqdid ninba aad gudgidisid hadda asxaabta qaaliga luqmada sidii loo kari mise oodkac ayaan isla arkaynaa insha Allah oodkac caraf badan inuu noogu soo baxan rajeynina ilaahay duuyira cusbadii ayaan hadda ku soo darsaday waad u jeedaan qof walba qiyaastiisa siga garanaya aniga hadda halahan cusba aan ku darsaday cusbadeeni caadiga ahayd cusbada shiidan ma ahan oo budada ma ahan waa tan caadiga marka qiyaasta adiga garanaayo inaad qiyaasatid waa hilibkaaga biidnillaah waa u jeedaan sidaan ayaan si fiican ayaan isku dhex gelinaa ma fahanteen biyo ayuu dhalaa hilibka biyo fiican oo dhalaa waqti ayuu qaadanaa insha Allah maadaama ayna rabo inaan waqtigaas tirada badan leh kaamiradeeda ku fogaato markaan isku soo noqonaynaa sidoo noqdo waan isla arki doonaa insha Allah inkastoo aan jeclayn inaan kaamirada ka jaro hadee isla joogna hadii kala asxaabta waa isla arkaynaa sidoo noqdo hilibkii waad u jeedaan hadda kisto gadgaduud iyo meelo kuwa gadgaduudan ayaa kuwa nooc waa u jeedaan hay biyaha fiiriyo dhalahe maasha aniga mar rabo biyaha inaan ka meero inuu ku bislaado rabo biyahan insha Allah si fiican ayaan u rogay hadda waa isku midab ayuu wada noqday Soomaa ما شاء الله waad u jeedaan biyihii karkaraya si fiican ay tookadan isku ekaaday marka waxaan rabnaa Soomaahan in oo biyahan ka guursado hadii kale luqma hilibkayga uu ka shiiraya hadda biyihii asigoo ku jiro si fiican aan u guursanin oo ka shiira hilibka mana loo baahna sidaas waxaa la rabaa hilibka inuu biyaha ka dhamaado kadib ayaa ku daraysaa saliidii waxyaalaha ay isticmaali lahayd insha Allah xabaar ayuu noo karayaa biyaha waad u jeedaan biyo fiican ayuu dhalay hilibka asiga oo biyo iska dhalay maasha Allah nimcada Ilaahay waaye insha Allah waan isla arki doonaa asxaabta qaaliga sidaad u jeedaan aniga maanta kama joojinaayo ma fahanteen walaaqida kama joojinaa waxaan rabaa maanta inaan sidaas u walaaqo hadii aad rabtid inaad oodkac karsatid walaaqid joojin sababtoo xogaa yar waa ka jooji kartaa laakiin badanaa waxay ku fiican tahay maanta inaad si fiican isdhex mariska mar xogaa yar hadaa joogto inaad qaandada isdhex gelisid oo marisid ayuu ku fiican yahay qiic saayidka kaamirada laga arki laayahay maasha Allah waad u jeedin Soomaa insha Allah biyaha way ka dhamaadeen waxaan ku darsanaa saliid aniga hadda liitar camal ayaan ku darsaday waxaan rabaa qiyaasta adiga fahmi karo aad isticmaalaysid 4 kiilo hilib waaye marka wali waxa way saliid waad u jeedin inuu si fiican saliid u dhex gashaan rabaa qaandadan si fiican u dhex gelinaa mise u dhex marsiinaa insha Allah
inuu shiilmaa la rabaa. Hadda wuxuu maraa bilaawgii le soo maahan, saliid waa ku daraa marka. waad u jeedaan asxaabta qaaliga, saliidii waan ku daraa xoogaa. waxaan rabaa inuu saliid soo tufo, ma fahanteen. liitarka kulimku wada darin, qayb kamid ah daay ka reebay. hadda intii hartay ayaan ku soo daray. insha Allah si fiican ayaad isku dhex gelinaysaa, sababtoo hadda sidaan ku hadda uga tagtid wuxuu ka noqonaa kalaankal. haddaad taqaan kalaankal, qofkii yaqaana karnaayo kalaankal ayuu ka noqonaa. mana la rabo adiga waxaad rabtid waa inaa oodkac macaan badan oo caraf badan aad heshid. insha Allah ka faa'iideysta asxaabteeda qaaliga. u share gareeya, like gareeya, sidii asxaabtiina u arkaan. haddii qof marti haddii ku imaado sidoo kale ciidihii oo kale waad samaysan kartaa. maasha Allah waa ka faa'iideysanaysaan ku dhahay, fahanteen. maasha Allah hadda waa kana aniga waa gacanta. insha Allah waad u jeedaan asxaabta qaaliga. oodkac waqti badan kaama rabo, inaad fahantid le waaye qaabkii aad u samayn lahayd. markaas wuu ku keedsamaa, ma fahanteen. si fiican ayuu ku keedsamaa insha Allah, mana kaa uraayo. waa kana asxaabta qaaliga, waan isdhexgelinaa si fiican. mar walba waxaan rabaa walaaqida aan u haayo waxay tahay inaan si fiican isku dhexgeliyo, sababtoo midna inuu karo midna aan karin. waa markaas wuxuu ka noqo uu ka halaabaya, ma fahanteen asxaabta qaaliga. insha Allah maasha Allah sidaas ayaan ku wadeynaa asxaabta qaaliga. hadda waxaan kaloo diyaarsanaynaa oo dhow waxyaalihii carafti ahaa iyo waxyaalo badan oo ku dardaraa. waa isla arkaynaa intaas, laakiin hadda horta cabaar waa inuu ku shiilmo oodkacii soo baxo, sababtoo hadda wuxuu maraa kalaankal le soo maa. inuu oodkac soo baxaan rabnaa, inuu oodkac soo baxa ayaan rabaa insha Allah. marka hadda saliidii wuu soo tufayaa. wixii daay saliidii aan ku darnay hadda wuu soo tufayaa, waad u jeedin soo ma. hadda maasha Allah midabkiisa sidaas ayuu noqday. insha Allah sidaas la rabaa, saliidii inuu soo tufo ayaa la rabaa. aniga kama deynin walaaqida, sababtoo inuu isku midab ii noqdo ayaan jeclahay. mana rabo mid oo dhinac ka gaduudan mid dhinac ka madow inuu noqdo. oodkacayga mise luqmadeeda inay isla haato, isku midab ay noqdaan. maasha Allah macaan kala arag insha Allah biidnillaahi alkariim. insha Allah asxaabta qaaliga idinkana uga faa'iideeya ehelkiina iyo asxaabtiina, waad ka heli doontaan insha Allah. try gareeya, feedback-gana idinka ayaa idinka sugayaa insha Allah. waad u jeedaan maasha Allah hadeertan saliidii si fiican ayuu soo tufayaa, ma fahanteen. saliidani waxaan waa ka miiraa, marka waxaan rabaa inaan isticmaalo subag iyo saliid isku dar. haddana inaan isticmaalo carcarfiyaan rabaa, ma fahanteen. khayr allaha siiyo. waa kana maasha Allah halkaas uu maraya digsiga. calaamada waad u jeedaan meeshaas hadaay maraya qoyaankii kaas ayuu maraya. insha Allah siduu hadda u socdo waa gursaday. waad u jeedaan meeshuu digsiga joogay iyo hadda meeshuu joogo ma islahan. waa kana hilibkeeni maanta maxay ka shidan tahay oodkac leh. canjeelada in loo cuno ani jeclahay weli. subaxdii hore ma aragtay canjeelada ninkii ku cunaan ku dhahay lagama sheekay karo. maasha Allah uga faa'iideeya dadka asxaabtaada qaaliga uga faa'iideeya insha Allah. asxaabteena waa u jeedaan hadda weli waxaa waaye si fiican ayaan u shiilaha, sababtoo waxaan diidaa hadhow inuu iga shiiro. maasha Allah soo maaha midabkiisa. insha Allah suu ku soo baxa iyo waxyaalihii kale u dhiman iyo waan isla arkaynaa. waxaan weli usii gedgedinaa mataqaanaa inuu isku midab noqdo. qiiciisa zaa'id u baxaaya maasha Allah. adeeg niyuusan kaa noqon, sababtoo haddaa shiilada ka badis wuxuu noqonaa adeeg, gooska lama saari karo. laakiin oodkac jilcan oo maasha Allah qofka cunayo u bagaayo, timirtiisa yarta dhexda uga shubanaysid kaala arag. saasaa la rabaa inuu noqdo. hadda waa u jeedin saliidii way soo burtay, sidii u burtay waa u jeedin soo maa. hadda wixii ka dambeeyay haddaan kusii hay lahay wuu kaga noqon lahaa, ma fahanteen. hadda wiilkan ayaan ku shubanaa
sababtoo saliidi ayaan kasoo bixiyay. inta waxaa digsigii leen soo saartay subag sixin oo subag ari ayaan ku darsanaa. weli waxaa subagii qayb ay u yaraad qayb kale aan kusoo daraa insha Allah waa idin tusaa. waa kana subagaan waaye intaantii laba subag waaye oo isku daray marka subageeni oo subag Soomaali waaye maasha Allah caraf. waxaan ku darsan doonaa basal, toon, qorfo intaas ayaan ku darsanaa. waxaan rabaa inaan cabaar isku shiilo. markay guduudato dhowaan ka miira waa ka bixinaa. hilibkii ayaan korka uga darsan doonaa. saliidna wuu kusoo kordhinaa xoogaa subaga. waxaa waay subaga zaa'idkana ma jecli. dadka qaar subagay rabaan qaarna ma rabaan. marka waxaan sameynaa laba qayb ayaan u kala qaybin doonaa insha Allah. hilibka naftigiisa hadda subagaan saliid aan ku dhex daraa, midna macsaraan ku isticmaalaa. hilibka caruur aan cunaynin subagaa jiraan insha Allah. hadda waa ka sidaas waxaa waay maasha Allah. khayr Allah siiyo maamadeenaan ka bartay maama Luusha Cabdi. Allah u naxariisto jannadii firdawsa Allah geeyo insha Allah. idinkana asxaabta qaaliga inaad iga faa'iidiin aan rajeynaa insha Allah. hadda waa kana mujeeda saliid ayaan kusoo daray. xoogaa waxaa la rabaa inay brown noqoto basasha iyo toonta iyo waxaas dhan inay isku shima caraf oo kusoo baxo. subagna ku jiro meesha badkaa ka qabanayaan ku dhahay. markaasaan u sameynaysa ma arag ujeedimo ad heel shiidan aan kusoo daray. ka sheekay caraf maasha hilibka maasha Allah maasha Allah. heel shiidan oo kusoo darsaday. marka waxaan rabaa lafta iyo dhuuxa maal dhigi jira inay ka gala hilibka insha Allah. hadda kadib waaba hilibkeeni waa saliidan waan dhigaa meel markuu qabowdo waxaan iskaga darsaneynaa insha Allah. hilibkana u jeedaan macsaro waay kan qaybtan caruurta ayaan u shubay. halkan kalena kala jeegan ku shubtay ma fahantay dadka kala cunaayo. saxankan waa saxankii macsarada maasha Allah. sheekeehe sidaan ayuu noogu soo baxay hilibkeeni oodkaca sidaan ayuu noogu soo baxay. waad u jeedaan maasha Allah. karaal noqda caruurtii yarta ay qeyliyeen insha Allah. waa kana sidaan ayaan kusoo gabagabeynay maasha Allah. fiidiyogan iyo fiidiyo kale intaan kulmeyna asxaabta qaaliga waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideysan doontaan. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.